kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa Urals Media ku soo dhawaada warka maalinlaha ah ee halkan aynu kugu soo gudbino si maalinle ah wararkii ugu dambeeyay adinka oo nagala soconaya baraha bulshada aan ku leenahay ee Facebook iyo YouTube ee Urals Media hadii aad ku cusub tahay haylaawin inaad kumato halkan saaxiibna aan ugu noqoto sidoo kale aad u share gareyso saaxiibada kale ee u baahan in wararka maalinlaha ah ee dalku ay soo gaaraan qodobada aad ku daawo doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah maanta dowladda Soomaaliya oo raadis ugu jirta ee Kenya oo fasaxday duulimaadada tagaya Hargeysa arintani maxay uga dhigan tahay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya qoor oo gaalkacyo ku sugan kana wada dhexdhexaadin halkaasi kadib khilaaf ka dhashay sheekh caan ka ahaa deegaanadaasi oo lagu dilay tuulo hoos tagta magaalada Gaalkacyo maxaa sabab u ah khilaafka xididaystay ee ka dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo dowladda Djibouti gundhiga arintan maxaad ku ogtahay xageesa ka bilaabatay qodobada kale aad Urals Media ku daawo doontaan waxaa ka mid ah xogo hoose oo laga helayo sababta ay Kenya u joojisay duulimaadada Soomaaliya ayaanu idin haynaa xogo arintaasi ku saabsan xagga ay sartu ka qurunsan tahayna waad ogaan doontaa Ismaaciil Cumar Geelo markii shanaad loo caleemo saarayo madaxweynaha Djibouti maanta oo Soomaaliya laga xusayo maalinta dhalinyarada 15 May iyadoo la leeyahay kumanaan dhalinyaro ah oo Eritrea tababar lagu qaaday halka ay cirib iyo jaan dhigeen qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawo doontaan Urals Media watahay daawadayaal qodobadaasi aan idin sheegay oo faahfaahsan ku soo dhawaada aynu ku bilaaban dowladda Soomaaliya ayaa raadis ugu jirta eedeysana baxsad ka ah cadaaladda telefishinka afka dowladda ku hadla oo soo xiganaya booliska Soomaaliya ayaa baahiyay baadigoob eedeysane la sheegay inuu baxsad ka yahay gacanta booliska kaasi oo loo haysto dambiye eedeysanaha oo boolisku baadigoobayo ayaa waxa magaciisa lagu sheegay Cabdixakiim Cabdisalaan Aadan waxaana loo maleynayaa inuu ku sugan yahay dhulka Soomaalida iyo deegaanada Soomaali galbeed ee Itoobiya booliska ayaa shacabka iyo maamulada dowlad deegaanada Soomaalida ee Itoobiya iyo sidoo kale maamul goboleedyada waxa ay ka codsadeen in qofkii arka ama meel ku sheega qofkaasi ama eedeysanahaasi loo soo gacan geliyo dowladda federaalka ee Soomaaliya boolisku ma aysan sheegin dambiga uu galay eedeysana Cabdixakiim Cabdisalaan Aadan waxaana baadigoobkiisa lagu faafiyay dhammaan warbaahinta dowladda iyo baraha bulshada watahay daawadayaal Urals Media ayaad weli naga daawanaysaan markana maxaa sabab u ah khilaafka xididaystay ee ka dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo dowladda Djibouti gundhiga arinkan maxaad ka ogtahay xageesa ka soo bilowday khilaafkan dad badan ayaa isweydiinaya waxa cadow isaga dhigay Soomaaliya iyo Djibouti oo ah laba wadan oo dad ahaan walaalo ka ah dhanka dhalashada dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo waliba siyaasad ahaan haddaba maxaa sababay khilaafka siyaasadeed ee xididaystay ee u dhaxeeya wadamadan tan iyo markii madaxweyne Farmaajo talada dalka qabtay marba marka ka dambeysa waxa soo xumaanayay xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Djibouti arintan ayaa waxa sabab u ah xiriir iyo xulufo dhow oo madaxweyne Farmaajo uu la sameystay Itoobiya iyo Eritrea ayaa ah wadan xoog ku haysta dhul sharci ahaan ay leedahay dowladda iyadoo dowladda Djiboutina arinkaasi ay u sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya xumaanta ay u qaaday aysan doonaynin in dowladda Soomaaliya oo siyaasad ahaan ay isku dhow yihiin ay xulufo noqoto wadanka Djibouti arintaasi ayaa keentay in Djibouti marba marka ka dambeysa ay ka sii fogaanaysay Soomaaliya ayna raadsato garab siyaasadeed oo weheliya maadaama Soomaaliya cadowgeeda ay uga garbisay madaxweyne Farmaajo ayaan dhag jalaq u siin hadallada ka imaanayay wadanka Djibouti ee ah inaysan jeclaysanaynin garabka ay Soomaaliya la sameysanayso Eritrea maadaama Eritrea dhul ay xoog uga haysato Djibouti ayaa garab saaxiibtinimo ka raadsatay Kenya oo iyaduna aan ku jirin xulafada madaxweyne Farmaajo ku biiray Soomaaliyana ay ishayaan arrimaha badana ay aad isugu hayaan arintaasi oo si weyn u sii adkeysay
Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa kala istaagay laba cirif oo aad u kala fog maadaama dowladda Jabuuti ay la safatay Kenya oo cadow la ah Soomaaliya oo ay badda isku hayaan halka Soomaaliyana ay iyaduna garab siisay Eritrea oo dhul ku sugan ay leedahay waddanka Jabuuti taasina waxay keentay marka ka dambeysa in labada dowladood ay si kala fogaanayeen arrintan oo in muddo ah soo jiitamaysa ayaa shacabka Soomaaliyeed ogaadeen dhawaan markii wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Dube uu eedeyn kulul u jeediyay Jabuuti isagoo sheegay in Kenya oo cadowgeeda ay kala safatay laakiin ma uusan sheegin in Soomaaliya gacanta ay kala horeysay Jabuuti oo iyadoo cadowga Jabuuti Eritrea oo dhulka haysta Jabuuti ay markii hore la safatay heerka khilaafka labada wadan ayaa gaaray in madaxweyne Farmaajo uu ka qayb gali diido caleemasaarka madaxweynaha markii shanaad la doortay Ismaaciil Cumar Geele Farmaajo ayaana la sheegay in casuumaad xafiiskiisa ku soo dhacday uu isaga weeciyay dhanka xafiiska ra'iisul wasaare Roble isagoo diidanaa inuu hor fariisto madaxweynaha Jabuuti taasi oo keeni karta in saaxiibada xulafada la Itoobiya iyo Eritrea ay halkaasi si kale uga dareemaan ama ay isku waayaan sidaasi oo Roble ku aaday waddanka Jabuuti ugana qayb galayo maantay xaflad Kenya ayaa fasaxday qaar ka mid ah duulimaadadii soo aadi jiray Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliland Kenya ayaa ogolaansho diblomaasiyadeed siisay laba diyaaradood oo alaabooyin doorasho u soo daabulaya Somaliland si looga qabto halkaasi doorashooyinka dhawaan la doonayo in laga qabto Somaliland lama oga arrinkan sida ay uga jawaabi doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay si adag isku hayaan dowladda Kenya iyadoo dhawaan labada dowladood ay kala joojiyeen duulimaadadii isaga kala gooshi jiray wadamada markana Gaalkacyo qorqor oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ka wadaa halkaasi dhexdhexaadin xumaan ka dhalatay dadka deegaanka kadib markii la dilay sheekh caan ka ahaa deegaamadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor oo xalay ku hoyday magaalada Gaalkacyo ayaa halkaasi ka bilaabay wada hadallo lagu xalinayo shaqaqo ka dhalatay dil loo geystay Sheekh Cali Axmed Faarax Sheekh Cali Dheere madaxweyne qorqor ayaa la kulmay odayaasha iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo isagoo oo kala hadlay sidii loo dhameyn lahaa shaqaqada ka dhalatay dilka Sheekh Cali Dheere sidoo kale gacanta lagu soo dhigi lahaa dadkii ka dambeeyay dilkaasi qamiistii toddobaadkii hore magaalada Gaalkacyo waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo dilka deegaan hoos taga magaalada lagu geystay Sheekh Cali Dheere iyadoo banaanbaxayaashu ay dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkaasi qorqor oo uu helinayo taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Cismaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif ayaa waxaa lagu wadaa in ay kulamo la yeeshaan saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada si baaritaan dhab ah loogu sameeyo waxa sababay dilkaasi Sheekh Cali Dheere xiisada magaalada ka taagan ee dilka Sheekh Cali Dheere sababtay ayaa laga cabsi qabaa inay horseedo dagaallo hor ah kuwaas oo dhexmari kara dadka deegaanka watahay daawadayaal xogo hoose ayaa laga helayaa sababta ay Kenya u joojisay duulimaadada Soomaaliya waxaanu idiin haynaa halka ay sartu ka qurunsan tahay diyaaradda ay Kenya joojisay in ay soo aadaan Soomaaliya ayna diiday ayaa la sheegayaa in Kenya ay uga jawaabaysay cadaadis uga yimid Soomaaliya dowladda Soomaaliya markii ay sheegtay in ay soo celisay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Kenya arrinkaasi waxaa ka shaqeeyay dowladda Qatar sida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay Kenya ayaa isku dayday inay Soomaaliya u soo iibgeyso qaadka in muddo ka xiriirnaa una soo dhoofiso Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa si cad arrinkaasi isaga diiday iyada oo sheegtay in dhigeeda Kenya una sheegtay in aysan ka mid ahayn waxyaabaha heshiiska dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa Kenya ka dalbatay in haddii ay doonayso in qaadkeeda loo iibgeeyo Soomaaliya ay ka horeyso in marka koobaad heshiisyo la wada galo shuruudo badanna ay u baahan tahay in lagu saxiixo Kenya oo arrinkaasi aan ku qancin ganacsatadeeda ayaa subaxii dambe waxa ay u soo direen Soomaaliya laba diyaaradood oo qaad ku raran kuwaasi oo la doonayay in Soomaaliya qaadkaasi loo soo iibgeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa
diyaaradahaasi qaadka ku raran hawada ka celisay iyagoo Kenya dib ugu celisay si weyn ayaa dowladda Kenya la sheegay in arrinkaasi ay uga carootay iyadoo subaxii dambe amartay in dhammaan diyaaradaha Soomaaliya aada ee Kenya ka duula dhammaantood aysan u duuli karin Soomaaliya ayna joogaan wadankooda Kenya. Arrintan ayaa la sheegay inay koonfurta Soomaaliya ku sababayso culays waaweyn maadaama diyaaradaha gobolada dalka isaga kala goosha laga lahaa wadanka Kenya. Arrintaas oo sababi karta in isku socodka dadka Soomaaliya weli waxaa naga daawanaysaan Walalis Media markana wadanka Djibouti. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii shanaad waxaa loo caleemo saarayaa madaxtinimada wadanka Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta markii shanaad loo caleemo saarayaa xilka madaxweynaha kadib markii uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada bishii hore ee soo dhaaftay. Xafladda caleemo saarka ee madaxweynaha Geelle ayaa la soo sheegayaa inay ka soo qayb galayaan marti sharaf badan oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo Rwanda Abiy Ahmed iyo sidoo kale midka Ecuador madaxweynaha Ghana Alpha Conde iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka South Sudan iyo xubno sare oo ka tirsan dalalka Uganda, Pakistan, Turkiga, Sacuudi Carabiya iyo Faransa. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa helay 98.41 sida la sheegay codkii dadweynaha ee reer Djibouti doorashadii bishii Abriil ka dhacday wadankaasi, waxaana la tartamay ganacsade lagu magacaabo Sakariya Ismaaciil Faarax oo la sheegay inuu helay 1.59 tirada guud ee doorashada. watahay daawadayaal Walalis Media ayaad weli naga daawanaysaan markana qodobadeena kuwii ugu dambeeyay ayaan isla soo gaarnay. Maanta ayaa Soomaaliya waxaa laga xusayaa maalinta dhalinyarada oo ku beegan 15 bisha Abriil. Soomaaliya ayaa dadkeedu waxa u badan yahay dhalinyaro, waxaana la xusayaa maalintan iyadoo dhalinyaro badan oo Soomaali ah lala yahay meel ay meel ay ku sugan yihiin. dhalinyaro badan oo loo qaaday wadanka Eritrea ayaa la soo sheegayaa ilaa hadda halka ay ku sugan yihiin inaan la ogeyn. dhalinyarada ayaa loo qaaday markii hore inay u soo tababaran doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadoodana ay ka mid noqon doonaan. warar badan ayaa sheegaya in dhalinyaradaasi ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay wadanka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigreega magaalada Makalla. ilaa hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya si cad uguma aysan hadlin dhalinyaradaasi, waxaana waalidiinta dhalinyaradaasi ay ka maqan yihiin ilaa hadda ay ku sugan yihiin calooliyow iyo calool xumo maadaama aysan meel ku sheegin wiilashooda halka ay ku sugan yihiin ama inay dhinteen ama ay nool yihiin. watahay daawadayaal Walalis Media ayaa naga